banaanbax wata rabshada ayaa maanta waxa uu ka dhacay xaafadda Belfile ee magaalada Cape Town waddanka Koonfur Afrika. banaanbaxani ayaa barqanimadii maanta waxa uu ka dhacay xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika. banaanbaxani ay sameynayeen shaqaalaha dawladda hoose iyo dadweyne kale oo aad u fara badan waxay wateen ulal iyo budad waxayna ka soo baxeen xaafadaha iyo deegaanada kala duwan ee magaalada Cape Town iyagoo socod ku soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Cape Town iyo goobaha ganacsiga waxayna ku qeylinayeen ereyo ku muujinayaan cabashadooda. booliiska magaalada Cape Town ayaa gaaf wareegayay dibadbaxayaasha si aysan uga dhalan carqalado iyo rabshado lagu dhibaateeyo goobaha ganacsiga ee xaafadda Belfile oo ah xaafad ay ku badan yihiin ganacsatada Soomaalida iyo kuwa ajaanibta ay ku nool magaalada Cape Town. intii uu socday dibadbaxani ayaa waxa albaabada la isugu dhuftay guud ahaan xarumaha ganacsiga ee xaafadda Belfile iyadoo ay saameyn ku yeeshay ganacsatada Soomaalida ee loo yaqaan waratada. guud ahaan shaqaalaha laamaha kala duwan ee dawladda hoose ayaa waxay sameeyeen shaqo joojin ayagoo ka codsanaya in loo kordhiyo mushaaraadkooda ay ku shaqeeyaan waxaana shalay iyo maanta magaalada buux dhaafiyay qashin aad u fara badan. Cabdillaahi Qorshe TV-ga caalamiga ee Royal Cape Town South Africa.